Aabahaneti diirnax la'aanta heerka nolosha uu ka gaarsiisan yahay waxa uu sameeyey wiilkiisa oo fal dil ah guriga ku dhex sameeyey gabar saaxiiba ay ahaayeenna dilay in uu garab ku siiyo meydkii in uu la qariyo. Waxa uu sameeyey isagoo xubnaha kale ee qoyska xaaskiisa iyo gabadhiisa ka qarinaya waxa uu falay in wiilkiisa meydkii uu la qaado meel ilaa iyo 60 mayl u jirto guriga ee falkaaniiti ka dhacayna wadada dhinaceeda meel saxara ah oo kale iyo meydka ku aaseen waana ay baxsadeen oo booliska muddo baadigoob ay ku jireen xubnaha kale ee qoyska sida wax ay u dhaceen xitaa waa ay ka yaabanaayeen. Waxaa markaa dhacday aabahaneti in mar dambe gacanta lagu soo dhigo waxaana uu tilmaamay isagoo qabarmoogo kale iska dhigayo waxa uu dhahay aniga waxa aan badoonayo waan u soo laabtay maadaama muddo aan ka maqnaay xubnaha qoyskayga in aan soo arko sidaasaytii u ahaa. Baritaanada booliska ay sameeyeen cadeymankii oo idilna marka la hordhigay waxa uu